عارفين كويديو هاستا هذه قدام بيسي محل وشي كرتا أقرتي marka qof caaya iyo qof amaano wallahi waxaan social media iyo qayladaan waxba ha arkin madeen kuma nicin darale kuma gabin balse nolosha dunidiyo xiliyadan istoorsha daliil lay sameeyay dhaga hadal ma qaatee sidaad ila dhaqantaan hadba kuula dhigayaa daliil lay sameeyo dhaga hadal ma qaatee aniga facebook ma lihi wax facebook instagramna ma lihi xiriirka bagaan uga bayray bagaan uga baantay naftayda bagaan boholyow uga raystay jacaylka bagaan badda raacshay dadkan waaweyn oo cimrigoodu soo laqay oo dowladnimada ka soo dhargay waxaan leeyahay isku haya dirin أنتِ wanaagsan oo wacdaa wadayaal meel kastoo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oo ku wareysanayno xidigta xidigaha marwada fanaanada qarniga walaashay marna dimaashiday waa ku soo dhaweynayaa malyuun waqtiga qaaliga oo kaaga mahad celinayaa soo dhawow sidoo kale waa dhawahay cabdixaafid oo ku faraxsanahay inaan hortaada soo fariisto anoo yara ku daawan jiray waa hore anoo yara ku daawan jiray waa hore waa ku faraxsanahay anoo weyn inaan kusoo ii sheeg aan kusoo hor fariisto war rabaaday waa isdiidayna waayaanba xaaladda ka waran saata warkaaga sii maraykanka ka dhacday maasha allah aniga maraykanka waa isciirsanaynaa ay wakaa ka waran nolosha maraykanka markaad fiirsateen iyo kalaan kusoo noolayn nolol waxa waaye iska kadeeda laakiin fursado badan leh wallaahi been kuu sheegayo maraykanka waa meel shaqo meel ina maarkin oo awlaad loogu talagalay horta ma ahan dee maraykanka qofka hooyaayo wax ku dhalay basa ay fahmi kara marka waa kaasaa waxba iskama gelin noloshii africa iyo nolosha america shaqol iskuma lahan aroortii waa la wada cararaya rag iyo dumar waa la wada cararaya markaas sida la jiidayaa shaqaa lahaaya adag aanad soomaaliya lagu haynin tii hooyanimadana ku darsan tii hooyanimadana noo dheer tahay ilaahay noo deysto amiin 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 waxaan rabaa inaan su-aalo kaa weydiiyo inta aan u imaanin heestaha iyo fankii u imaanin ninka odaygaaga sharma boy xaggee isku barateen jacaylkiinu xaguu ka soo bilowday goormaad go-aan qaadateen inaad tidhaahdeen adigu shaksi ahaan alleelehe kano waa ka nolosha la qaybsan lahaa go-aankaas inaad qaadatid wax badan baa ogtay soo dhaha warka wallaahi ii sheeg dee dad ilaahay calaf iskugu daraya ahayn xag ilaahay wax walbana ka qornaayeen dee waa ii sheeg anaka xaafadda boondheera isla deganayn reer boondheera ahayn marka dee waa isbarnay oo ii sheeg dad walaalaayona waa ahayn waa isbarnay dee markii dambana qofkii uu qalmay ina ah uu ii doorto kolley adiguna laftigaaga waa dooratay waa isdoorana markii u horreysay oo aad wada hadasheen aad ka xasuusataa istaqfurlilaato wallaahi dee maxaad webiyaalna waa soo maray ana maskaxda biyo iga galeen xasuustii kaa guunay waxaa ka xasuusta malahan waakaas kolley waxyaalo badan oo de wiilashii gabdho isweydaarsadaan waa isweydaarsanay laakiin ereygaas ha ka xasuustaa erey aan dhihi kara ma jiro maanta waa gartay haddii aan dhinac kale ka fiirino cabaar baa sheekaysateen geel laba jir soo wada markii u dambeysay waxay kusoo biyo shubanaysaa inaan kusoo doonaan rabaa reerkiina kaasoo doono nolol qaybsado markuu sidaas kugu yiri dabcan in badan baad ka fakaraysay adiga laftigaagu waa danaynaysay goorma adigu ka malyuun ahaan tiri alleelehe yes baan odhanayaa wallaahi waxba kama maqnaynbo waa kusoo warcelisay degdeg waa ku sikadi degdega ugu soo warceliyey marka waa kaasa
الرباضي هذا حالتي نوا كاسا نوشا ودوداقي سانو اسكو فرح سنتين ما شاء الله وما أنا عجايبتين الله يسوكين بركيو آمين آمين yaraantaadii bondheere haddaan ku noqontaan yaraantaadii imaanin bondheere degmo weyn oo qadiimiya weeye maxaad ka xasuusataa dadkii reer bondheere iyo xaaladda siday ahayd فاهم كل شيء حافظة سو حافظة حمر وجع لهاي wax badan aan soo joogay dad fiican oo qalbi wanaagsan oo xataa cid yaa tahay ku dhahaysa ma jirto cid yaa tahay ku dhahaysa ma jirto dee maqribkii marka casaradii la gaaro bondheer maalin walba horta aroosaa ka dhaca casaradii marka la gaaro wax boorsakeen la dhahaa jirto aniga afaarahaasa daba kici jirne anoo weynaan daba kici jira anoo yar ma anoo weynaan daba kici jira dadka ka dabageeyaan aqoon boorsakeen boorsakeenaa la dhahaa gabadha marka lasoo arooso gabadhu markay gabar tahay boorsaa laga daba keenaa bondheere gabadhu waa la xaqiijiyey gabarnimadeedii waay oo caddahay warkeeda marka boorsaa laga daba keenaa banaanka niika laga soo bilaaba ree waa berina waa saas waay durbaanka waxaa soo waa berina saas waay horta been ma kuu sheegaaye xamar dee waxaan dhihi karaa aniga lambar 1 aan siin karaa xamar waa meesha dadka ugu fiican ay ku nool yihiin wallahi been ma sheegay reality meesha dadka ugu fiican ay ku nool yihiin sababtoo intaas oo sano aad joogay xamar cid i dhahday ma lahan yaa tahay marka hadda social media iyo waxaan aan soo galnay qabiil iyo wixii ay noqdeen ma fahantay meeqa sana joogta xamar wallahi xamar wax badan aan joogay 10 sano wax badan aan jooga xamar kugu filan waa joogta igu filan xamar waa joogay insha allah waana ku noqon doonaa hadduu ilaahay idmo marka intaas oo dhan bondheer keliya deganay bondheer haa ma dad laga guuri karo ma ahanba dadkaas anaga waxaan deganayna howlwadaag iyo degmada hodan marka bondheere iyo meesha la yidhaahdo hadda xaafido waa kaa dhex gale ma isugta gabadha inay maro iska kay saarta umaleyna waxaa sugaa waajibaadkii haysataa hooya tahay alla aada u mahadsantaa daawadayaal shaqadii hooyanimada iyo waajibkeedii bay gudanaysaa barnaamijkana dhinac bay ka tahay heesaheedan ayaa noo soo socda haddii ilaahay yidhaahdo aan wax ka weydiin doonaa soo noqdo marka waajibka hooyanimay gudanaysaa waa kugu ammaanaynaa hadda waxaa weeye waajib hooyada gudan anagu reer wadaag baan nahay iyo degmada hodan bondheere iyo meesha la yidhaahdo kaxda iyo waxa weeye meelo fog bay nagu ahayn magaalada bartankeeda anaga degan maasha allah magaaladeena caasimadeena muqdisho meel laga tuura malaan ilaaha been caayay waxaan social media iyo qayladaan waxba ha arkin dadka saasaa la isku yahaa saas waa la isjecel yahay dadka waxyaalaha aad misgaraysay ama aad u hilowday xamar maxaa ka mid a iyo soomaaliya guud ahaan aniga xamar dhowr maraa sheegay waxyaalaha aniga xamar waxyaalo badan aan xamar ku jeclaa xamar magaalo iska degan waaye qof walba oo ma arkino oo dee aqli leh oo ii sheeg uu ku noolaan karo oona isagu ma arkino is agtaa garaynin uu ku noolaan karo waaye xamar waa magaalo soomaaliyeed xamar wax walba loogu xiisaa waa magaalo dalxiis waa dee waxaan kama hadli kara dee caweyska dalxiiska walaalnimada jacaylka social mediahan ha arkin marka xamar aniga been kuu sheegayay halkaasay iiga taalaa kaaraar muufa macaaniya macsaraa taala maka saartay macsaradii oo daba yarna oo xiisa waaya waxaad tahay xidig fanka ku jirta waa arkay inta badan adoo hadlaaya dadka inta badan aamusan baa tahay mar waa tahay howlahaagaa iska wadataa beybiyadaada yar baa iska caydsanaysaa carruurtaada allaa ku barakeey labadiinaba allaa isku barakeeyo heestii ahayd farxadda anigaa sameeya furihii farxadda goormaa gacanta ku dhigtay warkaas iga dabagii furihii farxadda dee furihii farxadda ilaahay baa gacanta naga saarayoo waxaa gacanta ku dhigay marka wiilkayga curadka aan dhalay alxamdulilah rabbilcaalamiin cabdullaahi yaa la dhahaa wiilkayga curadka dee furihii farxadda marka curadka aa dhishida horta furihii farxadda gacanta aa ku dhigaysa furihii farxadda waxaan gacanta kaloo mar kale haddana aa ku dhigay dee meeshii adduunka ugu fiicnayda aniga hadda aan joogaa haddii maanta fankayga ma arkin oo ii sheeg ma jecli fanka inaan kusii waara aniga aan kusii jiro waa shaqaysan karaa 9 lambaraa haystaa meeshaa rabaa kasoo shaqaysan karaa alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah ugu mahad celinayaa waddankeennina nabad allaha nooga dhigo waddankeena hadduu nabad noo noqdo dee shaqo ma weynayno annaga dhalinyaro haddaan nahay
marka wadanka nabad Allah nooga dhiga dhalinyaradana shaqo Allah siiyo fiican wadankanaga inaan kasoo tahriibno aniga aad uga xumahay dee aan kulligeen soo faarajino marka waxaan leeyahay wadanka nabad Allah nooga dhigo anaka wadankeena hadaa shaqo nabad noo noqdo dee qof walba wadankiisa uu noqonayaa marka waa kaas taas waa كل شيء يرجع إلى أصله لأن أصل كانوا حاول الصومالي نكون قلنا دول كان كرماليين قحوتي ونكون هاي ونسيب در اللي بعد دول كانوا كسوين لكن ده وضيال صوماليا والسوق بسنيسا ما تقدم بيسوق كسر في إيرانيسا هدي أمان لحاله لمن كاس وعلنا أو دين تشجعنا يوم مدة قرحنا إلى هاي ومدة كقبته dadka Soomaaliyeed amaan iyo cadaalad ay helaan cid ay u baahan yihiin ma jirto cid soo qaxinayd midnaba halka soo wanaagsanaya rajadaas wanaagsan in aynu aamino hirgelino qof walba dalkeena iyo dadkeena ambassador u noqdo aan bedelno wajiga fooshuxun anagoo mas'uulka ka nahay dhiiga daadanaya daruuri weeyaan waa gartay heestaas markaa qaaday iyo kuwo kale ka horreeyayba dad aan la soo koobi karinin baa daawada malaayiin ah ka falceliya heesuhu way dhib badan yihiin waqti badan baa laga maraa in la xifdiyo in la diyaariyo in la tumo hawl badan baa ku jirta adigoo waxaasoo dhan soo maray bay dadku waxay ka bixinayaan comment aan u qalminin ayagoon ogeyn waxa laga soo maray qoraalada noocaas oo kale markaa aragtid ku saabsan hadda heestaas farxadda oo kale iyo kuwa positive-ka oo malaayiinta oo ka badan sidee u miisaanta والله عبد الحافظ waxaa jirta hees hadda dhow aan soo qaaday aan iri dhawaq laygu dirayo hadal ima dhibaayo daliil lay sameeyay dhaga hadal ma qaatee sidaad ila dhaqantaan hadba kuula dhigaya marka aniga dadka yaqaana qofku hadal dhiba ma iyo aniga ama ay ama hay caynin aday ku taala waxa weeye wanaaga ka raacda ها أنا قلنا كان كراعة قف كاس بري كمال إنه بدي ما أركن بري أمان حضان ما أنت كأمس إنه بري أمان يسوق قرايا أوجه وحيالها dad fara badan intaan barnaamijkan diyaarin inay kugu amaaneen waxaa ka mid ah inay afgaaban tahay dad kale aadan u jawaabinin Soomaalida waxay tiraahdaa af daboolan dahab weeye waa kugu amaana 100% heestaas hadda aan noo sheegtay bal ku luuqade iyadoo bilaa muusiga adoo muusig ku qaaday ma ku aragnay heesta hadda aan ku sheegay sama noolaha dhammaantii ficil baa isdhaafshee caylaygu dhahayaan dhiirigelin ka qaada dhiirigelin ruuxaani daadayn anna kuma dhadhaca oo qof kastoo idhayalasada horan uga dhaqaaqa dhawaq laygu durayo hadalima dhibaayo dhaliil lay sameeyo dhaga hadal ma qaatee sida ila dhaqanta hadba kula dhigaya warkaagu cadiya waa garraqsatay warkaygu cadiya daawadayaal waa maqlaysaan gabadhaan waxba ma maqasho waa ka dhagalahay agartay insha allah marka qof icaaya iyo qof i amaano wallahi waxba igama gelin ani arrinaan kuu sheegayaa kusaabsan dadka publiga ku jira anigu dad badan waxaan arkaa mararka qaarkood kobanyo ama fikrado dhaliishu waa gooni waa in lagu dhaliilo lagu yidhahdo waxaan waa khaladay waxaan waa saxday kuwaas waa kuu hiiliyeen xataa haddii waxay kuu sheegayeen ay khaldan yihiin mararka qaarkood xataa si khalad ay wax kugu sheegayeen laakiin niyad ahaan qofku wuu fiican yahay laakiin kobanada qaarkood sida ugu wanaagsan waxa ay tahay inaad u jawaabinin ka aamustid maxaa yeelay haddii aad ka hadashid qofkii waxa weeye wixii waa isku mid baad noqonaysaan waxay isla jaan qaadaysaan kale dadka annagaa soo dooran oo guryahooda ugu soo dhacnay daaqadaha uga soo dhacnay layiri labarta anigu intaan kasoo muuqday dad soomaaliya guryahoodii fadhiya maqaayado fadhiya inay dhegeysta aniga
تاسا بيناي marka gar bay ku leeyihiin inay ku yidhahdaan adaan soo doontay naga dhammo mararka qaar ماي أنا قا ماشان هدان ما أركي قف حنا قرت قف حنا السوشيال ميديا إنه سوق لنا برون markaas marka dadkan adaa isbaray dee adaa soo hor furiistay shalay caydoodan waa ina u adkaysataa ammaantoodana aa ku farxdaa marka midda kale ammaanta waxaa dadka markaa fiirisid inta badan waa dad wanaagga jecel way Soomaalida marka xididka xanaaqa in la iska saaro dadka loo dulqaato haday waxaad tiri fanka inaan kusii jiro ma rabo maxaa udan leedahay walaale wallaahi fanka inaan kusii jiro ma rabo aniga maadaama hooyo aan ahay oo hadda gabar aan dhalay gabadheyda role model u ahay marka dee waxaan ma rabo inay waxaan igu aqliyeysato anuu ku jiro dee waxaan rabaa gabadheyda inay ii sheeg dee anoo fankii ka baxay oo ii sheegtay hooyadeedu ii sheeg shaqooyin u gooniya qabsanaysa waayo berri waxaa laga yaabaa in igu dayato dee hadday hooyadeed ma arkin oo ku aragto bal adna isku day waxay hooyadaa sameynaysay marka waxaa rabaa gabadheyda inay aqliyeysato anoona fan ku jirin insha allah ma rabo fanka inaan kusii jiro tala aad iyo aad iyo aad wanaagsan weeye waana soo dhaweyneynaa maxaa yeelay gabar waa hooyadeed weeye fikirkaas adigoo weli yar ayadii ay yar tahay inaad ku fakarayso wax wanaagsan weeye wax ka khayr badan oo ka fiican buuna ilaahay keenayaa bedel ka wanaagsan shaqo kuma jiro haddaan wax kaa weydiiyo magacyo badan baa waxaa lagu furtay facebookkaaga meeqa magaca leeda facebook ku furan dacaafid oo haddaan kuu sheego facebookga laya oo qosleedi facebookkayga hal qofa friend isla ah waana walaasha iga yar aniga facebook ma lihi wax facebook instagramna ma lihi weliga instagramna ma samaysan facebookna ma samaysan facebook hadda ka hor waa samaystay facebookan hadda ka hor lahaayaa jiro oo ii sheeg aan lahaa waagii ma xasuustaa shiin culey facebookga laga xiri jiray waagaasaa layga xira mana raadsan sababtoo micno qiimo iguma fadhin shiin culey hadda asagaa iskala baraha bulshada milkiilaha saaxiibkay wey marka aniga instagramna horta ma lihi instagram feyga jiro dad badan iga samaysteen ani instagram hal xataa taleefonkayga kuma soo dejisane ma lihi facebookna ma lihi tiktokna halkaan xababasaan leeyahay tiktok kale ma lihi isticmaalo oo maxay million point two-ga maraya halkaas tiktoka leeyahay dad tiktokyo badan iga samaystaa jiro tirada ka bato dee intaasoo boqoloo kun maraaya aniga ma lihi aniga tiktokan million point two-ga maraya basaa leeyahay instagram ma lihi facebookna ma lihi meel lagaa soo raajina ma jirto whatsapp leelihii soo raadiya gartay heeso badan ayaa qaaday labada hees oo is leedahay dareen gaar ay ku leeyihiin waa maxay wallaahi heeso badan laba heesaa jirto hees waxaa la dhahaa kumadeen kumaa nicin yaa u qaaday walaa cidna uma qaadan abwaanka isii laakiin ana dareen ahaan waa ka hela oo ku dhaqaajisa ha hees kale waxaa jirta ayadana macnaha heestas aaday u macaantay laakiin aniga wax shuqul ay u leedahay ma jirto xiriirka bagaan uga beerayaa la dhahaa ku dhufaada xiriirka bagaan uga bayray bagaan uga baantay naftayda bagaan boholyow uga raystay jacaylka bagaan badda raacshay qudhayda cidii aan baxnaanin qofkii beenbeen ku sabaayay fajiga buugiisa rasaysan garaadku baguuga booday humaaga bartaanka arkayo boogtii hore loo dhayi waayay kalsoonidu baaba u gaadhay kaashaydu hadeeruma baahnaa kaashaydu hadeeruma baahnaa kaashaydu hadeeruma baahnaa yaa kuu dhiibay wallaahi gabar ay dhiibtay awaanad carweelo dhan laxankana qaalid kaamila iskale dee muusiguna waa maftuux cadaad marka waa hees la iskugu tegay looma kala harinin looma kala harin heeskaas adna waa ku durduris anna waa ku durduriyey midda kalena waa tee hees kale waxaa la dhahaa heeskaas hees aad macaan waaye dadka badanaa way yaqaanaan heeskaas waxaa la dhahaa kumadeen kumaa nicin kumadeen kumaa nicin darale kumaan gabin balse nolosha dunidiyo xiliyadan istoorshaa qulubteena kala diray maruun aan dawoobe soo deg soo dhawowo soo durugdabe
صدرك معانو heeskaas hees aad u macaan waaye inkastoo aniga aan xabeebsanahay laakiin heeskaas aad u macaan yahay marka ku luuqeynayay dee waa heesii igu horreeyana way ahayd sharma boy dhinacaas iyo raabku aaday odaga maxaa uga daba tegi weydaa na raab qaaday wallahi aniga ma raabi karin been ma sheegayi aniga dhowr daqiiqa meeg ma haysan kariyo inaan arko waxiga iska qotaysta moogiye aniga ma samayn karin raab shukur iskuma leediin iskuma diin xataa kuguma soo dhicin ma igu soo dhicin inaan raaba ani ilaahayna iguma soo rido kuma tala jirtid alxamdulilah waxaan rabaa inaan ku weydiiyo heestaadii u dambeysay maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi heestaas ma raba inaan ka hadlo garta meesheeda ha ku ekaato baakina noogu jirto baakina iigu jirta ha fiican aa yeeshay saaxiibayaal malyuun ayaan la sheekeysanaynaa qof la heli kara ma ahan waa qof qaali ah qalbi wanaagsan xaqiiqatan bulshada kaalin dahaba ugaga jirta hooyanimo iyo hawl adduun isku dhex wada marna marwo ah marna fanaanada yaraantaadii kolay waalidkii ku dadaaleen quraan baa lagu baray warkayse alxamdulilah way igu dadaaleen alxamdulilah suuradihii kuugu sahlanaa quraanka markii lagu barayay ama lagu garaaco kugu adkaaday waa maxay aniga hal suurada quraanka horta ii sheeg suurado badan horta yaasiin igu dhib badneed ilaa haddana way dhibtaa yaasiin inaan kitaab qaato moogay ma aqriyo macnaha korka ma xifdisa aniga dawaagii hore dee waxaa ahaa gabar quraanka aad ugu fiican marka heesihii iyo wixii aan galay shuqul heeseed aan galay waa qalbi madoobaa isku arkay marka alxamdulilah hooyaday abe igu soo dadaaleen ajri xasanaad allah ka siiyo suuradee quraanka ugu jecesha suuradda quraanka ugu jeclahay duxaaya ugu jeclahay tabog tukada loo aqriyaa hadda ku dhegeysanay badan baa heeskaa dhegeysanay بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث خلاص تاجك الصوعرة وصاهرة هذا ما شاء الله ولا شيء كيكرم بيوتيفول ويان gabagabadii gunaanadkii aan ku jirnaa baybedyarina kaa kacda mar rabo maxaa fartiin u diraysaa fanaaniinta soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ku daawanaysaba dhalinyarada soomaaliyeed waxaan fariin u dirayaa waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed walaalayaalow horta dadka ku dayanayana social mediaha laga fiirsanayo waa annaka dadkan waaweyn oo cimrigoodii soo laqay oo dowladnimada kasoo dhargay waxaan leeyahay yaan isku kaaya dirin annaka yaan la isku kaaya dirin annaka waxaan nahay hurnuudkii dadka iyo nihii dadkaan nahay waxaan leeyahay dee qabiilku waa wax la isku bartay iyayna qabyaaladna qaadinaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed oo qabyaalad darteed yaanu isku cunin ilaahay waxaan ka baryayaa horta waddankeena hadduu nabad noogu noqdo waxaan kama jiraan waddankeena nabad allah nooga dhigo dhalinyarada waddankeena nabad allah nooga dhigo dhalinyarada waddankii joogta waxaan leenahay annaka kulley waa soo fakanay insha allah waa imaanaynaayo dee dhalinyarada waddankii joogtana waxaan leeyahay ilma adeeryaalo qabyaaladda hala iska ilaaliyo qabyaaladda waxa qabiilku waa caadi oo isku bartaa laakiin qurbaha jooga daran baa la yiri dadka qurbaha jooga ugu badan marka waxaan leeyahay ilaahay ma arkino wada dadka urmidaysan kulligeen urmidaysan allah naga wada dhigo qalbiyada allah qabyaalada nooga saaro ina u duceyno moogiya annaka hadda xoog ma xiriiri karna dadka adiga waa kuu mahadcelinaa allah koraameeyo hawshaada gasho waqtigaaga qaaligaa isiisay aadan kaaga mahadcelinayo waa ku faraxsanaa inaa soo horfariisatid waa ku faraxsanaa inaa wareysatid dee waxaan ku leeyahay malaa'igu ha kusoo booqato ay soo booqatee anigoo yaraa heesaaga dhegeysan jire anigoo yaraa wareysigaaga dhegeysan jire sidoo kale respecti abu respecti sharafti karaamo madaxa ii saaranta allah ku xifdiyo sidoo kale walaalkay qaali sidoo kale daawadayaal barnaamijkeen intaas ayuu ku dhan yahay malyuun ayay ahayd waqtigeeda qaaligaana siisay qof laga dhargaayo ma ahan baybiga yarkaaba haysataa hawl qarabta ku jirtaa waqtigeeda oga mahadcelinaa
intaan kaloo kala kulmi doono والسلام يا دليل رضا الصوماليين الله نمديه الله نمديه guuleyso